inaan magacyada xildhibaanada aniga ugu yeero ma jecli sababtoo ah waqtiga bata qof walba boonta offer buu sii qaadanaya laakiin jeega igama daba qaadanayee aniga inaan ku dulmanahay 31 ma qabo minority-ga 31 inay qaataan aad bay xaq ugu tahay adduunkana majority minority baa kala jira laakiin xildhibaan baa inta soo istaagay wuxuu yiri federal matalaya state dad minority ay degan yihiin matalaya intuu soo istaagay wuxuu yiri yaa la dhahaa beelaha laga tirada badan yahay runtii taasaa ceeba oo gaf ah oo khalad ah sababtoo ah annaga proud ku ah oo ku faraxsan inaan minority ahay haddaa fiirisi minority gurigiina xataa minority majority ku kala nahay aniga waxa jirta gabar walaashay Allah u daayay 10 cunug dhashay anna 4 cunug baan leeyahay halkaas minority majority kala nahay marka qofka horta inuu happy ku noqdo wuxuu yahay waa wax fiican laakiin anigu mar walba waxaan ka doodaa inaan la igu dulmin xaqi aan lahaa waxa aan rabaa marka dadka minority-ga intay haystaan oo carto ku soo qaateen waxaan aaminsanahay inay tahay in xaqa laakiin adduunka walaalkay Mahdi Guuleed aan aad u dhageysto doodiisa u jecelahay ayaa wuxuu ka hadlayay waxaan xildhibaanada senataradu ay soo qaadan oo ah dadka barakacayaasha ah nacam wuxuu u hadlayay dadkaas waxa ogtiin qof kasta oo soo istaago oo cilmi kasta leh oo diin kasta haysta dadka aan dadku u doodin looma hadlo inta badan qof kasta ama madaxweyne gobol buu iska dhisayaa ama reerka uu ka soo jeedo iska dhisaya hebel baa maanta hal lagu dhaho ku dhahaya laakiin dadka aan dadka u doodi karin ama dadka u metelin dadku kama hadlaan marka anigu waxaan meesha u soo istaagay runtii dadka minority-ga hal baan rabaa maanta inaan idin sheego NCC Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku fadhiyaa 4.5 qabiil buu matalaa laakiin Soomaaliya dhan baa dooratay hadduu 4.5 ku dhino ku xigeenkiisa la reer ahaan lahaa gudoomiye aadamadooba isku reer noqon lahaayeen aniga cid kale la ahaan lahaa horta waa inaan aamino oo Soomaaliya iyo calanka inta ku dhajisanayno inaynu qabiilaad nahay inaan horta aamino oo aynu isku dulmin anigu waa mid mar walba ka doodo marka inaan u soo laabto qodobkan hadda laga doodayay oo ah dastuurkan gacanta ku soo qaatay qodobka 72 wuxuu cadeynayaa uu leeyahay 54 sanatar in ay matalaan 18 gobol iyo Soomaaliya oo dhan beelaha xildhibaanada fiiri dastuurkii baa khaldan oo aan cadaalad ahayn 54 xildhibaan ee sanatarada waxay ku fadhiyaan baadil marka guddoonka waxaan leeyahay maxaa ka saxi doontaan maxaa sameynaysaa see ku salaynaysaa sanatarada ugu badan state-kayga ka soo jeedaan waligayna kama filayno in la iqoro 5 xildhibaan baan ku jeednaa 11 sanatar oo naga yimaada labadii sanatarba labadii xildhibaan oo meesha fadhiya waxay leeyahay hal sanatar laakiin annaga 5 xildhibaan ah ayuusan qori karin madaxweynaha hadda jooga kii ka soo horeeyay kii ku soo xigi doona inuu anoo 0.5 oo beelaha laga tirada badan yahay aaminsan inuu iqoro marka mid walba inta soo istaago wuxuu leeyahay xuquuqda Soomaaliya John Helter baa wuxuu yiri Hebel Fraser baa wuxuu yiri adiga ama diin Soomaaliya aan ku dhaqano aayad Quraan iyo xadiis Bukhari iyo Muslim soo qaado oo ku dhaqan ama wadamada aad sharciyadooda ka sheekeynaysid minority-gu waxay leeyihiin xuquuq u gooni ah oo aan la taaban aniga hadda Minneapolis aan ka imaaday ilhaanta Afghanistan calamada u raxaysan minority ahaan bay ku qaadatay gabar miskiin oo qaxootiga shalay tagtay bay ahayd inay laandheero tahay oo majeerteen ay ka timaaday uma aysan soo qaadan kursiga inay gabar miskiin tahay madow tahay ku qaadatay marka aniga waxaan rabaa mooshin baa qornay guddigana waa u soo gudbinay aniga NCC waxa uu gali waayay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha oo u fadhiyay gudoomiyaha bahalku wuxuu gali waayay koow minority baa labo madaxweynaha wuxuu igu yeeri waayay oo nimanka waaweyn afarta ogda hadana naag baan ah Soomaalida waxa ceeb ku ah inay intay 5-6 nin oo meesha fadhiyay naag inay soo dhex fariisato
ma aaminsana mararka qaarkood xataa meelaha laga la qorayo haddii wasiiro la qorayo haddii guddiyo la qorayo aniga haddii uu fadhin lahaa mudday markuu fadhiyey sharcigiisa bannaankaasaa loo dhigi jiray sababta waa nin marka dulmi dumarkiioo qaba iyo minority oo weli dulman haddana marka ama adduunka ka hadlayno ama meelaha ka joogno nin walba wuxuu soo qaadanayaa aayad wadaadada ugu badan wuxuuna ku tubanayaa qof miskiina war Soomaaliyay aniga in la iga badan yahay anaa qirsan anaa proud ku ah oo runtii oo sheegta laakiin ina xaq markaa 90% ay tahay 90 qaadatid ayaa ogolahay oo tobankayga ama halkayga banaanka dhigtaan marka meesha dhan waxaan u soo istaagay qodobka 72 inuu soo noqon minority rights kiisa ina qortaan haddii kale hadda motion idinka keenaya la idimana ansixinayo waxaan la hadlayaa waa guddoonka labada maxaa la dhahaa gole mara la idin ansixin doono xaqa ay leeyihiin minority-gu meel ku qora ama 31 ha taagnaato ninbaa wuxuu leeyahay intuu meel soo istaago yaa tiriyo yaa yir waa laga tiro badan yahay war waa laga tiro badan yahay laakiin waxaan ku ogolahay majority rules anna waxa ogolahay minority rights kiisa ina qortaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin salaamu calaykum